gurmadkan oo ah deeq lacageed loogu talagalay in lagu caawiyo ilaa 1,000 qoys ayaa ka timid shacabka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana lagu wareejiyay guddiga dhaqaalaha ee gurmadka Qardho inkastoo shacabka Beledweyne xilligan ku jiraan xaalad adag oo u sababay fatahaada webiga Shabeelle haddana waxay qayb weyn ka noqdeen gurmadka shacabka Qardho gudoomiyaha dhalinyarada deegaanada Hirshabeelle Maxamed Cabdilaahi Buraale Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ah xogayaha gurmadka Beledweyne ee Qardho iyo nabadoon Xasan Macalin Gashiin ayaa u hadlay waftiga ka socday Beledweyne ee deeqda waday anoo ka soo imaanay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaan u soo gaarnay oo u soo gurmanay runtii walaalaheen reer Qardho ee dhibaatada gaartay runtii shalay waxaad noo imaadeen anagoo idin baahan waliba ay tahay xaaladii ugu xumeed ee na soo marta taariikhda intaan aniga aan ognahay dhibaatadii ka dhacday Beledweyne oo ah midii ugu weyneed abad soo marta runtii dhammaan ummadii halkaas joogteen ay biyo qaadeen kii dhaqaale haystay kii nolol haystay dadku dhan maaragtay garba sameynay noqdeen runtii waxaan noo fidiseen oo noogu imaadeen gurmad aad u weyn oo aad noo muujiseen walaalnimada iyo maaragtay Soomaalinimada adikoo waliba na dareensiinay inaad nooga dhowdihiin cid walba oo Soomaali ah waliba maadaama naga dhaxayaan wax badan runtii waa idinkaga mahadcelinaynaa runtii maanta waxay joogtay waxa ku timid dhibaato waliba emergency ah oo dhibaatadu way kala tahay mid laga yaabo in waxba uu la iska difaaco laakiin mid hal habeen oo qof kasto oo maaragtay aanan awoodin inuu la baxo naftiisa waliba dad badan ay ku dhinteen runtii caruur ay ku dhinteen waxyaalo laga naxay ay dhacday waxaana dhaqaaqay dhiigana damqaday runtii waxay ahayd nasiib darro oo wax dhacay oo wuxuu Ilaahay keenay ahayd alxamdulillah kulli waxa ogaan kasto cid biyo dhibaatada ay leedahayna cid mar walba saameeyaan anaga wax naga ogaa kara ma lahan biyo dhibaatada ay leeyihiin xanuun oo dadka kala dareemayeen inaan dareenay waxaan go'aansanay inaan idin soo gurmano xilligaas xilli fiican ayadoo nasiib darro annagana waxaan ugu imaaday musiibo oo sidii markaas aan rajaynaynay noomaysan noqonin runtii sida adilka noogu soo gurmateen haddana dhibaatadaas oo na haysato oo annagana ay musiibadaas nagu dhacday ayadana mar labaad waxaan ka jiifin waynay walaalaheen reer Qardho ama reer Puntland oo runtii shalay anagoo u baahan garab istaago salaan kadib runtii waa wax lagu farxo inaan idin soo dhinac istaagno adinkoo u gurmanayo walaalihiin Qardho runtii walaalnimadu waxa weeyaan waqtiga adag ee xaajadu jirto inaan idin dhinac istaagno annagu ka nimid masaafo dheer ee laga yaabo inay gaarayso ilaa 900 kilomitir kana nimid meel duruufo adag ka jiraan laga soo bilaabo maalintii dhibaatada ay ka dhacday Qardho 28 Abriil ilaa maanta oo soo gaarnay Qardho waxaan ku mashquulsanayn si aan u dhinac istaagno walaalaheen ee dadkii dhibaatooday ee biyo raad ku yeesheen inaan dhinac istaagno inaan la wadaagno xanuunkii ay dareemeen inaan u tacsiyeyno wixii dhintay wixii dhibaatada ugu gaadhay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu rajaynaynaa inuu u boogadhayo walaalayaal safarkiina wuxuu ximbaarsan yahay walaaltinimo iyo gurmad iyo gargaar runtii duruufaha jira awgooda noomay saamixin in wixii laga sugayaan ku nimaado Hiiraan iyo wax soo saarkiisa iyo wixii lagu yaqiinay inaan dhowr candhameedo xoolo keeno ama aan keeno qudaar iyo wax soo saarka wadanka lagu yaqiinay duruufaha noo diiday iyo waqtiga lagu jiro laakiin waxaan rabnaa inaan ugu doontaan gurmadkii aan ka keenay Beledweyne oo ah kaash walaalaha duruufta Qardho ka jirtane guddiga gurmadka ayaa nooga xodogaalsan waxay ku haboon tahayne ayaga naga og waxaan rabnaa inaan ayaga wixii xil ah iyo wixii mas'uuliyad ah aan ku wareejino runtii waxaan ku soo talagalnay annaga inaan caawino 1,000 qoys oo reer Qardho ah wixii aan ugu talagalnay ayagoo kaash ahne waxaan ku wareejinay account-ka guddiga gurmadka jeegeedina waan ku wareejin doonaa walaalaha hadal intii la dhihi lahaa ama meeshii wax wanaagsan la mariyay in dib loogu noqdo sax ma aha walaalihii iga horeeyay ayaa warbixintii guud ahaan meelihii ay ku habooneed iyo siday ahayd u tafatiray anigu kaliya marka roolka aan ku leeyahay bacdaan ahay oday dhaqan aan ahay warkaygu wuxuu ku gaaban yahay waa iska duco waxaan leeyahay Soomaaliya ilaahay uu Soomaaliya dhibaatada ka dulqaad
soomaaliya ilaahu dhibaatada ka dulqaad ilaahu soomaaliya qalbigeeda isu soo duub ilaahu madmadowga iyo waxa ku dhex jira ka dhex saar ilaahu soomaalinimada garansii ilaahayow xaqi isku leeyihin garansii intaas kadibna xubnaha guddiga dhaqaalaha ee gurmadka qardho oo isugu jira culimo xildhibaano wasiiro iyo siyaasiyiin ayaa hadalka isaga dambeeyey iyagoo u mahad celiyey shacabka beledweyne waxayna si rasmi ah ula wareegeen lacagta lagu wareejiyey sida intii walaalahayaga ay gurmadka beledweyne ay yiraahdeen baa hadalku runtii ku egyahay boorka waxaa ku qoran walaalnimadu waa isu danqasho waa dhab runtii maantay oo haddana maalin taariikh leh oo 15 May oo maalintii dhalinyarada Soomaaliyeed ay isu tageen oo ay hindiseen ururkii SYL ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ayay ku beegan tahay oo waa munaasabad iyada laftigeedu tixgelinteeda leh maantay gurmadka aad u soo gurmateen walaalihiina Puntland khaasatan magaalada Qardho waana idinka mahad celinaynaa oo si aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaan aad idinka mahad celinaynaa inaad soo marteen masaafo 1 kiiloomitir ah idinkoo la damqanaya walaalihiina Qardho oo dhibaatadu ay gaartay iyadana aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa marka hore dhammaan mas'uuliyiinta iyo guddiga iyo wafdiga reer beledweyne waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan bogaadinaynaa soo dhaweynaynaa walaalaha reer beledweyne oo iyagoo xaalad adag ku jira u soo degdegay inay kaalmana soo gaarsiiyaan runtii waxaan ku cabiri karaa ehelnimo iyo walaalnimo xil weyn ay iska saareen oo ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan walaalahooda reer Puntland gaar ahaan magaalada Qardho oo ay waxyeeleeyeen daadadkii soo rogmay aad baan uga mahad celinaynaa waxayna muujinaysaa ifafaale aad moodo Soomaalidu inay ku soo siqayaan hanaankii dowladnimo inuu dib u soo laabto wax wada qabsiga iyo iskaalmeynta waxa ku xiga in Soomaaliya ay u taabagasho dowlad adduunka ka dhex muuqata oo sharafta iyo karaamadeedii 100% hadda dowladnimo waynu haysanaaye 100% dowladnimo aba ifafaalaheedu muuqda runtii walaalaha reer beledweyne waan xujeeyeen haddaan nahay reer Puntland guud ahaan haddaan nahay gaar ahaan reer Qardho sababtoo iyagoo duruuftaas ku sugan waxaan u malaynayaa haddaan hada dhaguhu ikhaldin lacagta ay noo wadeen lama sheegin wali haddeer ay wareejin doonaan $40,000 lacaga oo kaasha oo saa ay sheegeen ay ugu talagaleen 1,000 qoys inay wax ku taraan ayay keeneen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi qofka ilaahi baa u hiiliyo u gargaara inta walaalka uu hiilinayo wuxuu kaloo yiri nabigeena sallallahu alayhi wasallam ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas ilaahi dadka wuxuu u jecel yahay kuwa dadka u waxtarka badan reer beledweyne waa waxtar runtii waa dad walaalo ah waa dad annagu runtii markii aan tagnay wafdiga aan kamid ahayn aniga iyo wasiir maxamed xasan ciise iyo maxamed caydiid jaamaci aan kamid ahayn markii aan tagnay beledweyne ficlan 7 habeen baan joognay laakiin 7 habeen oo aan joognay annaga shaqaan wadnay reer beledweynena waxay mashquul ku ahaayeen annaga noloshayada socodkayaga nabadgelyadayada ilaa aan runtii madaxweyne waara uu noogu yimid hoteelkayagii aan deganay marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala intii bixisay lacagtaas intii bixisay iyo intii ku soo tacabtay ilaahay meesha ka bixiyaan wax ka khayr badan loogu bedelo ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro ilaahay waalidiintooda cadaabka ka xoreeyo ilaahay khaatimadooda hagaajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khalaf iyo bedel siiyo allahumma a'ti munfiqan khalafan kuwaas wax bixiyay ilaahay bedel ha siiyo walaalihii soo socday oo halka u soo maray waxaan leenahay tibtum wa taaba mamshaakum
وتبوأتم إن شاء الله من الجنة منزلا إلهي وحن كرجينا إنه جنة إلهي سبحانه وتعالى إذن كب شعره إلهي سبحانه وتعالى ما شاء كتب الإسلام بإذن كتيريو ريب بلدوينا وأنا غفر حيان الله كفر حيان سيداس أشياء رنتي مرتدى وعريين نكلا يراهدراوي وبلدوين يعني runtii markaan aniga markii baladweyne igu horeysay ahayd markaas boodada liiqliiqata markaan istaagay ayaan waxaan sooraystay markii uu hadraawo curinayay heestaas iyada runtii waxaad garanaysaa meesha quruxdeeda iyo boondada siday u egtahay iyo webiga iyo dhulka quruxdiisa Soomaaliya marka sidii u baanu leenahay insha Allah taala baladweyne Allah iyo ka dhig meel barwaaqo ah يا بلدوين الله يو بلاغة حرير مر آدي آد بين فرحين الله كفرحيو آدي آد بعد ما هتسنتهين وايدين ما هتعلنينا وحن إلهي سبحانه وتعالى كرجيرنا إن تكون نقطان قريهن إذيكو سالمين غانمين بيها فنتي مالين والباكوسو فتاها يا بلدويننا إلهي وحن كرجيرنا إنه فضو دايو إنه ماركتا محاق لأنبياء دم بنقفتهن بلدوين ومقالة قرح بدن ومقالة قونة ومقالة barwaaqo waa magaalo resource iyo maxaa kula khayraad fara badan leh runtii waxaan ku yiraahdayaasha xalay marka tiraahdeen qardho waa baladweyne waa qardho arma iska soo gudi weyna arintaas iyada ah oo aan qardho ay ku aadi weydaa baladweyne baqdinta waa nagu jirtaa aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khadar cawl ismaaciil warbaahinta daljir qardho